الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هل كان maanta waxaan xariga ka jaraynaa laba fasal oo hablaha walaalaha arabsiyo ay ku dareen iskuulka agabar ee loo yaqaano raaga bidaar waxaan leeyahay ilaahay ka abaal mariyo labada qol ay ku dareen iskuulka agabar raaga bidaar waana ninkan xariga insha Allah akbar. waxaan ka mahad celinaynaa xusuustaan anagoo idinkoo wadanaga fog jooga aad xasuusateen imaatikii hore halka noogu timaatay hantidaad ku soo deeqdeen ee waxaa si quruxda iyo sharafta iyo karaamada la fuliyay imaatikad maanta haddana halka noogu soo noqotay aad baan uga mahad celinaynaa kolkaa ma taalo meesha inkiraad waxaa la yidhi ay laba qolo dagaalamayaan baa nin falaadhiisa laga taagay midna dabadaa lagaga dhuftay markaasaa ninkii la yidhi war mateyshaan kaa goynaa misantaan dabada kolkaasuu yidhi war dadkaynu waxay haysay inuu shaalista war asal dhige ta dabada iga gooya buu yidhi tii baa laga jaray markaasuu haka yiro u fadhiisto markaasuu dabeetana ayaa tii shalasta dhibyaad looga jaray waxaan uga socdaa haddaanay deegaanka aanay waxbarasha jirin haddaanay caafimaad jirin haddii dhul isugu yimaado mujtamacu ku wada tashadaa aani jirin waa nasiib-darrooyin aad u waaweyn markaa waxaan aad iyo aad aan mahad uga celinayaa hablahaasina soo xasuustay laakiin dadkeenni mid bay ku xumaadeen ka dardaaraya ilaahayna way kaga fogaanaya qofku hadduu wax qabto waa inuu ciisaasi taariikhda u gadaa irbadda dul hageliye laakiin nin caalam dhan wax ka dhigay ayaa laleeyahay muxuu qabtay wuxuu ummadu baa ka lagu cunayaa waa nasiib-darrooyinkayna haystay ka mid tahay kuwaas qof walba wixii uu qabto hadday yihiin wax taariikhda u gelaya oo laga ikiraynin waa lagu liibaanina waynu liibaani lahayno qof walba waajibaadkiisa ama si fiican u guto kii si fiican u gutana loo diro kolkaa dadkeena waxaan sheegaya ninka walaalka ee dhaleecaynaysa ayuu kuu muuqane bal aakhiradaada dib u eeg horta qofka haddaad cus tihiin uu dib irbad u dheliyo xaq buu kubinaya inaad u dirto taasi waa taa waxaan jecelahay anu nina waanamayi laakiin marmarka qaarkood afriida waa yartuura iyadoo ducaa daa'imo wallahayow dalka iyo dalaga beeraha dunyada iyo daalayo diinta iyo dawladnimo deris iyo walaalnimo isku duubnida daacada loogda allahayow la deeqaha naga dumi daa'imo wallahayow dumarka iyo carruurtiyo deeda soo kacaysiyo doobka iyo gashaantida duqeydeeda talisiyo durustiiyo tacliintiyo dugsiyada kuwaa dhiga kuwa sida diraysada dalka daafacayee dibadaha wareegiyo astarada dalkeeniyo duqeydeeda dhaqankiyo culimada alowda daa'imo wallahayow kuwa wararka kala dira gaadhsiiyo dunidee dabashada ka doorto muuqaalka duubee qaymada ku daali dabaylaha adeegsada wixii laga darsoonaa daca hadday ka daran tahay kuwa dibadda soo dhiga dadka daha uga foga daabaca wargeysyada saxaabadda alowdaa kuwa dilaya alowdumi dabaylaha saqar iyo daadkuba ha qaadeen wadaba kaleen daa'imo wallahayow cudurrada dilaaga duuma iyo daacuun kuwa daawo loo hayn dulahaan xanuunada kolay duuri ku tahay dib u celi allahayow naga saar dabaylaha dabargoo allahayow dib ha noogu soo celi daa'imo wallahayow raxmadaada aysiyo daruuraha ilaaciyo salaamay markoo horeysa anigu waxaan ka imid qurbo jooga Somaliland ee London degan hablaha walaalaha arabsiyo waxaan dib u soo dhaweynayaa horta markoo horeysa waxaan ku hadlo ma garanayo anigu hadalka ma aqaane horta raallibayda niga ahaan markii noo horeysa marka labaad ay xigta gacmo wada jir bay wax ku gooyaan geed kaliya nin walgeed walba wada gubtaa hoostaala qof kaliina wax ma qabto waxa fiican in aasaaska hoose idinku aad ka soo bilaabataan hawsha oo annaguna wax idin la qabano oo wax idin la tarno odaygaas wiiga oo horta oo hibay haysa wad mahadsantiin intiina kalena assalaamu calaykum waraxmatullahi agabar walaalaha arabsiyo aad bay tilmaan u leeyihiin oo ay dalka ugu leeyihiin gaar ahaan gobolka Gabiley wax qabad badan oo aan soo koobi karin bay ka sameeyeen gobolada
waxa u dambeeyay imika labada fasal ee ku joogno ay ka dhiseen agabar horta ilaahay isaga ka siiyo xaq ka soo saarayna ilaahay xasanaadka kiisanka xasanaadka Allah u saaro awlaadooda iyo naftooda iyo caafimaadkooda ilaahay ha yeelo iyagoo aan ducaynayna waxaan leenahay dadweynaha ku degan reer agabar anigoo kollay isla waxa tahay deegaanka oo doonayna naftooda ku hadlo agabar saacada wasiir waa meel go'aana ka fog hargeysana ka fog gobolkana ka fog runtii aan lahayn waxyaalo badan oo adeeg caafimaad ah oo aan lahayn adeegyo badan oo adeegyada bulshada ah oo ku taala meel si fiirsan tahay deyntii soo socday mustaqbalka waad garanaysaa waa meel beeraley ah waa meel xoolo dhaqata ah oo maxay helayeen beeraley aadna way ugu go'an tahay dawladda ay uga fog tahay iskuuladooda sanadkii ugu badan yihiin waxaan maleynayaa goob caafimaad ma laha station police ma laha sirdoon ma laha waxa moodaa inay ka xiran tahay maxay helayeen Soomaaliland ka xiran tahay oo ay tahay meel go'an ah dadka reer agabarna waxa leeyahay dadku wuxuu ku kala faa'iidaa media iyo maanta qorshaha waxa leeyahay dadka reer agabar isku tiirsanaadaan ha ka hadlaan media dadkooda walaalaha qurba joogta iyo dadka Soomaaliland maanta wax qabad badan ay dawladeena aad u sameynayso iyo dadka gobolka u dhashayba iyo dadka deegaanka joogaba ay isku tiirsadaan oo si sharaf leh oo wanaagsan oo wax loola qabto oo dadkooda wuxuu ugu sheegtaan oo qabtaan waxa soo soconay imika intaas oo kiiloomitir waxa ka jirta wado saacad iyo rubc loo soo socdo marba soo mari jirnaa halkan maraan ka heli jiray waxa saacad iyo rubc loo socdo inta u baahan tahay wax weyn maaha runtii haddii aad u qaylisaan oo aad dadweynaha ula sheegtaan waa wax yar oo fudud wadada isku dhamaanaysa halkan ay arabsi ka galaysaa aysan taamad oo leeyahay dadka reer gabarna waxa leeyahay maxay helayeen soo idinkuna dhaqaaq sameeya dadka kale ee walaalaha kale ee qurbaha ay joogaan xagga qurbaha waxaan leenahay bal magaaladana si gaar ah loo sameeyo waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa mar labaad iyo saddexaad walaalaha arabsiyood ee kala jooga UK Norway iyo Sweden intuba u heelan inay wax ka qabtaan goboladooda iyo degmooyinkooda ayaan aad iyo aad ugu maqaynaa waxaan leenahay inshallah khayr ilaahay ka jisaysiyo halkiina ha harsado andadiina ha la cuno hadalkiina ha la maqnaan leenahay halgankii dib u dhiska wadanka markuu burburay kaalin weyn bay ka qaateen gaar ahaan waxbarashada imigana wax badan bay haddii alla yidhaa ku tala jiraan weli way wadaan haddii alla yidhaa mahad gaara ayaan u jeedinaya qurba jooga reer arabsiyooda wiilasha ana waxaan leeyahay wadankii wuu idin sugaya ku dayda gabdhaha tusaale fiican ay idin noqdaan wiilashana leeyahay dadka wax qabtaa gabdhaha u badan yihiin reer agabarna waxaan leeyahay ha tacab khasaarinina ha lagu dhigto iskuuladii weliba waxaa lagu darayaa wasiirka waxbarashada daraasyada oo aan qalabaysnayn dhismo ahaana aan dhammaystirnayn inay wasaaradda waxbarashadu u dhammaystirta agabar oo ay ka caawiso lafteeda waxaan leeyahay in gaari waxbarasho la siiyo degmadan agabar maadaama ay fog tahay gaari waxbarashaha helaan ma leeyahay ilaahay baa mahadnaqay hambaliyaan u dirayaa gabdhaha walaalaha aragtooda ee waxqabadka soo sameeyay ayaan hambaliyeen waxaan anigu u mahadnaqayaa hablaha walaalaha arabsood meel kasta joogaan inkastoo ay meel badan wax ka qabteen hablahaasi maanta laakiin iskoolkan aynu joogno ay labada fasal ku dareen baa aad iyo aad u qaaliya waxaan leeyahay waad mahadsantihiin halkaad ka soo saarteenna ilaahay wax khayr qabaha idin geliyo ree agabarna waxaan leeyahay horta wax walba waxaa ka qurux badan odaybaa waxaa la yidhi waxaa la reer guuraabay haaya deetu isagiiyo islaantiisii baa wada socdayoo awrkii baa ka dheeliyay awrkii markuu ka dheeliyay ba islaantiisu lay gaabneed isna u gaabo markaasuu islaantii ku yidhi naama tashana tocbi waxa weeyaan idinka laftiin waxa fiican inaad tashataan waxaasaa lahaysataa wax noogu dara aad tidhaahdaan waa ka qurux badane waxnuna siiya had iyo jeer waxaa ka qurux badan waxaasaan haysanaa wax noogu dara inaad tidhaahdaan marka idinkana intaasaan dooranayaa assalaamu calaykum waxaan maanta halkan munaasabada aynu halkan isugu nimid waxa ay tahay laba fasal oo ay dhiseen ururka walaalaha qurba joogta arabsiyood labada fasal oo aan ahayn kuwii ugu horeeyay intay gobolka ka hirgeliyeen ama degmooyinka oo ay labada fasal ugu dambeeyeen aanay noqon doonin kuwii ugu dambeeyay taariikh ahaan
noqon sidii ay horeba usoo bilaabeen socon doona ururkan uu kasoo hirgeliyey xagga waxbarashada ka caawiyey degmooyinka kala duwan Agabar iyo Arabsiyo 5 fasal hore dugsiga dhexe ku biiriyeen secondary-ga 2 fasal bay ugu dareen qalab kale oo iyaguna waxay ka soo caawiyeen ardaydu ay baahi weyn u qabeen ururkan oo taariikhdii ay bilaabantay ay tahay 2008 ilaa hadda aynu joogno wax qabadkoodu aad u balaaran yahay waxa kale oo ay degmada Arabsiyo ka hirgeliyeen dooxii oo xukuumaddu intii ay noo xidhay maahay qaybtii kale magaalada dhibaato weyn u geysanaysay qayb weyn bay ka qaateen madrasadaha kala duwan ee diiniga lagu dhigtay degmada Arabsiyo waxay ka caawiyeen xagga qalabka kuraasta waxa weeyaan haddaba sida ay u garteen dadka walaalaha Arabsiyo iyagoo joogo waliba wadan shisheeye ah waxaan doonaynaa inaan inaguna ugu dhiirano inagu waxaynu joognaa wadan xabadda furanka iyo qoobka shaaxaynu isku cunaa xalaal inoo yahay xisaab ay ku jiraan mar walba waqtigoogii ilmahoogii baa lagala xisaabtamaya hawl weyn oo ognahay qurbaha hawsha taala haddana waxay u hureen inay naftoodii inta ay uga jareen iyo waqtigoogii bay u hureen inay gobol wax u qabtaan wadankoogii oo qayb weyn ka qaateen marka waxaan idin leeyahay inaga ahaan hadday reega bar tahay hadday tahay Arabsiyo meel walba Soomaaliland oo dhan waxa weeyaan horta waa dumar baa imiga la isku dhaafay raga waa ogtiin wali ma la rag in la leeyahay ragaas waxa u dhasheen gobolka ama degmada u dhasheen oo 2 fasal bay ka caawiyeen ama har gaari way heli karaan inay naga caawiyaan oo ka gaadiidka maanta ay isugu xidhnaadaan degmada iyo gobolku xaqii waxbarashada ama caafimaad ahaanba way heli karaan inay iibiyaan laakiin waa dumar waxa la isku dhaafay marka horta Ilaahay baa mahadle mar iyo laba waxaan mahadnaqaynaa ururka walaalaha Arabsiyo oo kala jooga UK Norway Sweden iyo Canada fadhigooguna yahay UK marka waxaan iyagana leeyahay ajri xasanaad haydan ka siiyo inta dalka ka soo saarteen Ilaahay in ka badan haydin galiyo hana ka niyad jabina hana ka daalin hawsha adalka haysan saad u bilowdeen u wada oo idin garab taagnay anaguna kii gobol ahaan iyo degmo ahaan hadday maamul tahay anigoo ku hadlay afka golaha deegaanka gobolka Gabiley ahna wakiilka u joogo qurbo joogta walaalaha Arabsiyo gobolka anigoo ku hadlay waxaan idin leeyahay waan idin barbar taaganahay mar walba labada galaas yaa waxaan noogu heelay ayaan hambaliyo iyo mahadnaq dirna in Ilaahay iyaga ka jeesaysiyo annagana waxbarasho wanaagsan ay noqoto labadan fasal ay noo dhiseen hablaha qurbo joogta walaalaha Arabsiyo ee inta wadada la sheegay kala degan Ingiriiska Sweden Norway iyo Canada waxa ay mar hore aan halkan isku nimidnay tii iskuulku yahay 4 fasal baahiyo badan ay ka jiraan waxa jirtay ardayda aydkii wasiir inaanay ayd imaga ugu hor saafar arday baa ka baxaya baahiyaha waxay ka mid ahayd fasal la'aanta ay ardaydaasi u baabaayeen laakiin maanta sidaan ku rajo weynahay sugayno alxamdulillaah rabbil caalamiin in secondary-na oo imanayaan ku rajo weynahay anigu mid baan oranayaa hablaha waan u ducaynaynaa miisaanka xasanaadka khayr Ilaahay ugu bedelo halkay ka soo saareen wax khayr Ilaahay oo geliyo 9 fasal bay maraysaa intay iskuul wax ka qabteen 7 ay Arabsiyo ka dhiseen iyo labadani hawlo badanna way ka qayb qaataan laakiin mid baan idinku dhiirigelinayaa idinka dadkiina reer Agabar ee halka degan Arabsiyo iyo Agabar wasi waa xaafad isku mid ah isku deegaan baanu nahay waa Arabsiyo Agabar way kala farcameen isku xidhnaan baa la idinka doonayaa waxa la idinka doonayaa soo jiidasho waxa la idinka doonayaa dhiirigelin waxa la idinka doonayaa fasalada idinka dhistay wixii ka maqan ee idinka maqan tijaar la galgasha iyo wasaaradda galgasha inaan halkii ku xidhnaan oo dabeeshu galin si ay hadhow tola ardaydu markay dugsi dhexe u dhameystaan dugsigii sarana halkaa ku dhamayso maanta inaan heer fasalka ka baxaa sideedaad dee kaamatay kala Hargeysa waalidkiina beertiisa baa ku taalo noloshii baa ku xidhan marka dee Hargeysa wada tagi mayne iskuul sarana Agabar inuu ka dhismaan inuu doonayo ku rajo weynoo jecelahay sidii uu dhismi lahaa ee inoogu hirgeli lahaydna waa in qaban qaabadeedii idinka reer Agabar ahaan la idinka helaa oo wax kasta cid kasta soo jiidataan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa hablaha Ilaahay baa mahadle qurbo joogta iyo haweenka reer Arabsiyo maalin walba masaafada anagu waxbarashadii aanu nahay buur walba aan ka dhacnaayo nama damqayso laakiin haweenka kale reer Arabsiyo iyaguna hablaha la xidhan ee maalin walba halka oo imanay dadkooda wax loo qabto dalxiis ma aha iyaguna waxay u socdaan yididiila iyo dhiirigelin iyo wax qabadka hablaha iyo idinkaba dugsigan Agabar
waxay tahay fursad aad u weyn in labada fasal ay nagu deeqeen hablaha walaalaha arabsiyo maanta aynu xariga ka jarno tani waxay muujinaysaa walaalaha arabsiyo ma aha waxbarashada gobolka intanoo keliya inay kaga qayb qaateen laakiin tani waa mid ka mid a caawimooyinka ballaaran ee walaalaha arabsiyo ka geystaan gobolka haddii ay tahay dhinaca waxbarashada haddii ay tahay dhinaca caafimaadka iyo haddii ay tahay sida gebyankii dooxii arabsiyo oo kale door muhiima ayay ka qaateen walaalaha arabsiyona waxay kaalin mugle kaga jiraan jaaliyadaha firfircoon ee ka qayb qaata guud ahaan horumarka gobolka ururka waxbarashada ee uhwa la yidhaahdo iyo kuwo kaleba way jiraan door muhiimana way ka ciyaareen runtii gobolka waxbarasho ahaan waxay naga mutaysteen shahaado sharaf runtiina waxaanu aad iyo aad u jecelnahay inay halkaasi kasii kobciyaan waxqabadkooga oo ay kasii horumariyaan laakiin inaan dib uga laaban baanu jecelnahay inay kusoo biiraan qaybaha kale ee jaaliyadaha kale gobolka waayo waa gobol ballaadhan jaaliyado badan buu leeyahay wuxuu leeyahay ganacsato badan wuxuu leeyahay dad fara badan buu leeyahay gobolku awalan marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqayaa hablahaas gartay inay dalkoodii wuxuu qabtaan iyagoo jooga meel 10,000 kilomitir u jirta Somaliland marka ugu horeysa waxaan leeyahay jazakallahu khayran ilaahay idinka jisaay mariyo waxa uu qabataan dalkiina mid baan isir taagaya waxa la yiraahdo contributionka ama community sidoo isu organize gareeyo ama isu abaabulo waxa weeye waxa jira dawlado waaweyn oo dunida aad garanaysaan haddii imika la idin sheego oo maanta haysta tiknoolajiyada adduunka ugu casrisan iyo nuclear oo ay horumarkooda iyo waxa ay haystaan iyo waxa ay gaadheen ay ka bilaabantay qaaraanka iyo community-gu sida ay soo abaabulaan wax isugu dareen Israel baa ka mid ah maanta waa adduunka waddanka ugu horeeya research bay yaan aqoon bay yaan waxa ka mid ah Eritrea way wadaa sidaas oo kale community-gooda marka Mareykan baan joognay waxa way qof kasta oo Eritrean meel kasta ha jooga $1 buu bixiyaa ama $2 adduunka meel kasta uu ka joogo lacagtaas akoon bay ku dhacdaa waxa laale wixii Eritrea ay u baahan tahay haday dagaal gasho haday wax kale la soo gudboonaato haddii iskuul la dhisayo halkaas ay akoonkaasi ku dhacda lacagtaas wadiga ka imika dawladaha yaryar Afrika waa dawladda ugu warshadaha badan ayay noqotay taa contribution-ka ay isku darsanayo ee iska kaashanayaan community diaspora iyo dadka deegaanka iyo dawladdu waxay keenaysaa in horumar la gaaro dalku uu horumaro oo dabeetana dadkuna way ogaadaan in wax la wada qabsan karo waxa bilaabantay hadda arrin noocaas oo kala ifafaalaan muuqda dadka ay wax isku darsanayaan community-gii uu ka kacay oo wake up call ay noqotay wadada ceerigaabo dawga cad tii gabilay tii wajaale meel walba dadka sameeyay dadka ku darsay dawladuna waxay awoodeysay way ku dartay wad ogtiin itaalkeena inaga ka dawlad ahaan waxaanu nahay dal aan cid ictiraafsanayn haddana sideen ku socono dee dawlado waaweyn baanu dhaanaayo ka wanaagsan marka la eego dhinaca nabadgelyada marka la eego cid siin karta cid aan la ictiraafsanayn oo 40,000 oo askari ama 50,000 oo shaqaale ah mushahar siin karaysa oo sanadkii 3 jeer ama 4 jeer u kordhinaysa dee ma jirto ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa taas oo ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa Soomaaliduna waxay ku mahmaadaan hadba sidii loo jabo ayaa loo dhutiyaa oo waxa weeye haddii dayaxa la waayo xidigaha lagu gudaa oo dayaxu ma aha inaad mar walba dayaxayso marka waxa weeye haddii aynu dhaqaalada wax walba inoo dhisaa dee sidaynu marba sibaynu u gurguuranaynaa community-geenu iyo diaspora-nu baryaynaa inaan noo qabta qaar indheer garada oo sida hablahan walaalaha arabsiyo kale iyadoo aan cidina dirin gartay inay agabar ka dhisaan ragabidaar ku daraan laba fasal ay ku daraan meelo badanna way ka dhacday waxaa jira walaalaha gaaroodi iyana wadooyin iyo ku darsada contribute gareeya kuwa kaloo badan ilaahayna waxaan ka baryaynaa rag iyo dumarba inaynu u soo jeesano dalkeena sidaynu uga qayb qaadan lahayd dawlad iyo shacab iyo mid daba jooga iyo mid dal joogaba aadna waa wax aynu ugu faani karno waxaa jira xilligan aynu ku jirno hadda ciidamada qaranku waxay tageen taleex bay tageen tegidda ay taleex tageen maahan ujeedadoodu maahan inay cid ku duulaan waxa weeye qolo qaswadayaal ah oo mar horena dalka qasgeliyay iyo nabadgelyo xumo ayaa waxay damacday inay meesha shir ku qabsadaan waxa ku soo biiri kara shirkaa iman kara oo ku soo biiri kara in xitaa argagixisadu ay ku soo biirto oo dalka uu qasgeliyo taas ayaa kaliiftay ciidamada qaranku inay galaan taleex oo ay dabeetana xuduudka ku dhawaadaan dabeetana kala eriyaan
kooxihii doonayay meesha inay ka abuuraan qas oo shir qas wada oo dib u keenaya dalkeena oo mandaqada nabadgelyadeeda halis gelinaya inay halkaa ku kala eriyaan mana aha ciidanka qaranku ciidan cid ku duula mid Puntland ku socda mid meel kale ku duula ciidamada qaranku waxay tageen meel ka mid ah xuduudaha Soomaaliland bay tageen oo cid ay uga shaqeynayaan qas wado bay u tageen halkaa taana waxa doonayeen shacabka reer Soomaaliland ku baraarugsanaado oo aan loo arkin inay ciidanka Soomaaliland iyo xukuumadda Soomaaliland ay gardarro ku tagtay halkaa waana dhulkoodii xuduudkay ku jirtaa gudaha Soomaaliland bay ku jirtaa Taleex sida taas bisa ogaada mar labaad waxaan u mahadnaqayaa dadweynaha reer Agabar sida fiican ay noo soo dhaweeyeen halkan malaaqadana waa noogu bislaanaysaa waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantahay